السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام الأمان ملا بدنا كجلتان وأنا إسماعيل يتكلم كده بنيسين وإسماعيل أفشل وصار هذا بكلم وقال رمضان كريم بإذن الله هاي ملا بدنا كجلتان dad qaar waxay isweydiinayaan waxay tahay berito khamiis ah ma ramadaan ah mise maalinta ku xigta oo jimco ah ee ramadaan ah dadka inta badan waxay ku wareyseen waxay tahay xilliga ay tahay ama xilliga la soomayo ay ku aadan tahay bishii ramadaan dad badan isweydiinayo gaar ahaan dadka joogo Nairobi waayo masaajidada dhan aa wada xiran wax sheegayo malaha qof walba wuxuu fiirinaa social mediaha Facebook ahaat ama YouTube ahaat qof live uu soo galay inta badan dadku waxay fiirinayaan shaqo uma aan sidoo kale maanta dhan YouTube ka fiirinay in mar aan Facebook aan fiiriyo ay ahayd alxamdulillah waan faraxsanahay in berito hoos geliya ma rabino naas beri isdiyaar okay wool up nigga wool up just wool up laakiin alxamdulillah waxa lagu dhawaaqay in la soomi doono maalinta ay soo galayso jimco biri maahan biri dambe insha allahu tacaala waa soon la isku deeriyo in leeyahay dhammaantiin meel ka joogtaan ramadaan kariim kulli caam wa antum bikhayr hal isdiyaarihe okay marka insha allahu tacaala alxamdulillah ramadaan khayrkiis wato oo maxaa la jiri oo caafimaadkiis wato ilaaha ka dhigo waxaa arki jirteen jimco bilaa khudbo waxaa arki doontaan ramadaan bilaa taraawiix ah wax taraawiix la tukanayo ma laha intuu xaaladan lagu jiro waayo xaaladan mar haddii lagu jiro laisku imaan karo meel lagu tukanaa ma laha qof walba waxay noqonaysaa inuu ku cibaadaysto sidaa daraaddeed wax guur maxaa la jiro masaajida lagu tukanaa ma laha khudbo tukanayo malaha jimca waad aragteen haddana waa sidoo kale ramadaankan oo kale wallahi weli ma arkin ramadaan oo taraawiix laan ah weli ma soo marin dhibka jiran waxay tahay waa cudurkan hadda adduunka uu ku faafay ay meelihii dhan ay wada xirmeen isku dhaqaaq inaa joogsan wax isu socdo malaha goobii la fariisan jiray meelihii shaha lagu cabi jiray maqaayadii la fariisan jiray dhan way xiriyin hadda waxay noqonaysaa qof walba inuu gurigiisa uu ku cibaadaysto rabbi ila baryo in cudurka ilaahay uu naga qaado ummadda muslimiinta meel badanida ku joogaan inuu ilaahay ka qaado gaar ahaan waddankeena hooyo oo hadda sidii hore xaalad ay kasii jirayso oo weliba kor ay socto 280 iyo jajab 290 ay kusii dhowday ilaa 300 ah insha allahu tacaala waxaan rabbi ka baryaa inuu cudurkan ilaaha naga qaado aan leenahay ramadaan kariim ramadaankiis kale waxay idin rajeynaa inaad caafimaad ku soontaan muuqaalkeenta suu ku egyahay waxayna ballan muuqaal xiga anigu caafimaad qabo idinku caafimaad qaba fadlan muuqaalka intaada ka tegin subscribe noo saar muuqaalka like garay fikirkaa kasoo dhiibo lana wadaag asxaabtaada si ay ugu faa'iidaystaan muuqaalkan